بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودل إيه دبد بيدين كالسلام يساء ومدرج جبوتي سيسيك داغو بريك نيوز خبر عاجل وردك دقا وحاهد دان إذن الله هدليو إسو غاري ورياياشا كهولغلا الراديو بكاعو إيتوبيا غارهان مغالة ديري دابي iyo wariyayaasha ka howlgala Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa iga soo gaaray warkii markaan isku dheeli tiray ee labadii war isku miisaamay waxa iga soo baxday xaqiiqa inay tahay warkaasi. waxaan jecelahay inaan ummadda reer Djibouti daliya dibadba dagooga ku soo rido maragna uga dhigo. Soomaalidu waxay tiraa waxlay waxeedii madayso, waxay ku mabeen dhiiga, waxay ku mabeen dilka, waxay ku mabeen mar walba mission inay dadka reer Djibouti ku fuliyaan. laakiin maanta way ka duwan tahay oo meel khatar ayay abaareen. caaqu meel khatar ayuu doonayaa inuu mission ka fuliyo, laakiin Ilaahay kuma jiro taladooda. TPLF Djibouti waa taqaanin inta ay yihiin iyo cid ay ka kooban yihiin. waxa dhacday in ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim la doonayo in la kharajiyo, sababtuna ay tahay ugaaska 3 goor baa casuumad loo diray. 3dii goor ee casuumadda loo diray ugaasku uu ka biyo diiday inuu Djibouti yimaadana wiiska diiday. ugaas Mustafa uu diiday inuu Djibouti yimaado. waxa la doonayay doorashada horteed, doorashadan ay u dabaaldegayaan TPLF iyo caaqu, inuu ugaas Mustafa yimaado uu yiraaho dee waan u duceeyay caaqa, laakiin uu ka biyo diiday mayman. markii horeysay waxa loo diray waa 3 goor baa la soo amaartay ay martiqaad loo diray. 3dii goor baa ugaas Mustafa uu ka diiday. markii horeysay waxa uu tagay Ismaaciil Taani uu ka soo biyo diiday. markii labaad waxa uu tagay Xasan Madoobe uu ka biyo diiday. markii saddexaad waxa uu tagay Maxamed Jaamac Marvin Gaye oo isaguna erga wata. 3 goor baa uu ka biyo diiday ugaas Mustafa. waxa dhacday markaa inay yiraahdeen haduuba la diiday waa inaan doorashada horteed isdhaafinaa. de Ilaahay tooda kuma jiro, Ilaahay taladooda kuma jiro. Ilaahay baa waxda dila waxna nooleeya. caaq Ismaaciil qofkii ka hor yimaadaba ma dilide, qofkii ku nacaba ma dili, qofkii dambigaaga ka cararaba ma dil baad u qoondayn. ma qaadac maanac baa tahay caaq Ismaaciil hadii 4 TPLF ta ah. marka waxaan u sheegayaa, waxaan marka hore ogeysiinayaa dawladda Itoobiya. dawladda Itoobiya waad ogtahay dabka ku socda deegaankaaga, dhibta ka socota waad ogtahay. dhibtaana waxa ku gacan leh caaq Ismaaciil. dagaalka maanta lagu hoobanayo ee Afar iyo Ciise isku dhameeyeen dadka masaakiinta ee walaalaha ah ee wada degan oo fidnada isagu dhex wado, waad arkaysaa. abiye waad arkaysaa dalkaaga waxa ka socda. maantana wuxuu doonayaa ugaaska in la dhibaateeyo, haddii ay dil noqotona lagu fuliyo dil isagoo dalkiisa Itoobiya dhex jooga. taana adiga la doonaya in lagu ceebeeyo. wuxuu doonayaa hadhowna inuu yiraahdo Bacfar baa dishaan Ciise dilay oo meeshu sii ballaarato fidnadu. waxaan uga digayaa dawladda Itoobiya, TPLF Djibouti wali faraha idin kula jiraan. marka waxaan idin ka codsanaynaa ugaaska amnigiisu idinku idin saaran yahay, idinka ka mas'uula. siiba waxaan doonayaa inaan aad dhagaha ugu sheego on maarta dhagahooga ku soo rido deegaanka Soomaalida. dawladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay ugaaskaas hadday wax gaaraan ogaada idinkuna nabad ku fadhiimaysiin, waayo dabku uu holci. isaguna wuxuu ku talagalay inuu geeska Afrika holcaya ka tago caaqo, laakiin Ilaahay taladiisa kuma jiro. rag baa la xulay, mercenaire la xulay, rag dadka laayaa la xulay, kuwii ay waligood bahaysanayeen baa la xulay. galiilaha marina baa la yiri xagga sare ka wareega Itoobiya jannada lawya cadda ka baxa, xagga sare ka soo galaa la yiri Itoobiya. ma maqlaysiin? halkaas hadday dhibicdii noqotona waa dhibicdii, hadday dhibicdii suurta gali weydana tacshiiradeeya baa la yiri. warkaas la rooraya caaq Ismaaciil maanta intaas ayuu rabaa inuu geeska ku khalkhaliyo. ugaaska yare ilmihiisa leeg ee caruurta ah uu doonayo inuu maaragtay naftiisa u qoonsado. ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim waxaan leeyahay, hadday cunto tahay, hadday biyo baad tahay, iska ilaali meel aanad ku kalsoonayn. biyana kama cabbi kartid,
cuntana kama cuni kartid siiba meelaha dirdhaba hilibka laga iibsado dhan iska ilaali dadka lacag baa xidha lacag waalan bay diraan lacag waalan bay bixinayaan oy ummadda ku kala kaxeeyeen dadkii lahaana ay maanta ka gaajoonayaan Jabuuti meel walba mission bay ka fulinayaan meel walba inay dad ku dhagaroobaan bay rabaan meel walba inay dhiig ku maydhaan bay rabaan waxa weeyaan waa vampire waa miciye ku dhiiglooyin waa reer wada saaraa nafta saarayda sicirka sirmooday isaga oo maaragtay neef xoolaha ay ka dhigto dib iyo madaxa uu ka dhaqaaqaya TPLF tiyo iyaguna doonaya TPLF Jabuuti oo doonaysa dadka inay laayaan de marka maanta faalku wuxuu u qabtay ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim sidoo noo diidaa 3 goor baan casuumad u dirnay uu nooga biyo diidu noogu iman waayay de qofku ikhtiyaar buu leeyahay ikhtiyaar buu leeyahay ugaasku isaga xor ah ummad baa dooratay ummadda dooratay umbaad ka mid tahay adiga caaqo diban u yara noqono waxaan ku xasuusiyo maanta Allah u naxariistay ugaas Xasan maalintaad u tagtay intaanad madaxweynaha ba ahayn maxaad ka tidhi inaan xil qabtoon madaxweyne noqdaan doonaya ii ducee ma ka tidhi muxuu kuugu jawaabay xariga ka talaabsa hadaad daacad tahay xarigi maad ka talaabsatay de kiibaa tahay maantana kiibaa tahay doonaya inuu ummadda islaamka ah ee walaalaha ee wada degan fidnada dhex dhigo waxaan u sheegayaa reer Jabuuti reer Ethiopia reer Soomaaliya ummadda dariska ee walaalka qoriga dab kale qiiqaya ka digtoonaada waxa wada caaq Ismaaciil isaga ka garwadeena haday ilaahay baabuurku wadi jiray annagu waxa leenahay dhagarta aabaheed weeyaan isaga fuliyo mishanada baabuurka ninkii wadi jiray ha loo daayo ma waa dhagar qabiil dhagarta yaqaanay ha loo daayo sheekadu maantana wuxuu doonayaa inuu inanka yare caruurta ah ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim inuu ku talax tago waayo 3 goor uu casuumad u diray u martiqaad u fidiyay ugaasku diiday taani baa u tagay u diiday Xasan Madow baa u tagay uu diiday Maxamed Jaamac Marvin Gay baa u tagay uu diiday sideeba naloo diidi karaa TPLF Jabuuti warkaasay keeneen marka ummadda waxaan u sheegayaa haday ciise tahay iyo haday cafar tahay iyo haday ummadda Soomaaliyeed iyo haday dariska tahay ka digtoonaada fadqalalada iyo falkaas uu waday masiibadaas uu wadaa dhiigaas uu rabaa marka ugaaska waxa leeyahay kolay hilib tahay meesha aad og tahay neefkaaga aqalkaaga ha lagugu qalo biyaha iska ilaali wax walba iska ilaali xaajadu indha kale leedahay cabsi baa wadankii ka jirta wadankii waa la kacay Jabuuti isaguna wuxuu doonayaa dadka inuu halkan Ethiopia ku mashquuliyo adeer dadka mashquulin maysid waa lagugu soo jeestay waxa dhiiga iyo waxa dhiba oo Ethiopia ka dhacayna adaa ka mas'uula meel walba wax lagu dilay adaa ka mas'uula meel walba dhagari ka socotana adaa ka mas'uula khaatir kabiir anta adigu khaatiliinta u weyn baa tahay marka waxa leeyahay ummadda reer Jabuuti ka digtoonaada ummadda reer Ethiopia oo digtoonaada waxaan idin leeyahay gacan ku dhiiglii caaq Ismaaciil wuxuu doonayaa inuu inanka yareeyo ugaaska ah ee Ilaahay ciseeyay ee beeshiisa ugaaska u ah ugaasyada Soomaaliyeed oo dhan marxaati baan uga dhigayaa ugaasyada cafareed oo dhan marxaati baan uga dhigayaa dhageysta oo maqla waxaasuu doonayaa inuu maanta ku kaco wuxuuna ka dagaalamayaa maalintuu ugaasku yiri annaga cafarinimo leeyna Tigray baan laayay taasuu ka dagaalamayaa sidoo uu oran karaa wuxuu doonayaa inuu yiraahdo cafar baa dadka laysay laakiin cafar iyo ciise adaa isku diray cafar iyo ciise adaa iska hor keenay cafar iyo ciise waxa ay ka gam ilaahiin ay ka seexan laayihiin waa adiga caaq Ismaaciil ilaahayna aduu ku weydiin dadka masaakiinta ee dhulka ku dhamaanaya islaynaya ee fidnada ku tahay ee dabka ku tahay ee qoriga dab kale aad wadato marka waxaan idin sheegayaa ka digtoonaada dhiig baa la soo wadaa maanta dhagar kale warkay waayeen wax kale waxay yiraahdeen ugaas Mustafa ayuu faalku u qabtay de digniin baan idin soo dirayaanu nin loo digay ma dhiman baa leeyri mari dagaalaha dago mar labaad daga saana dagan ka digtoonaada ciidanka u adkeeya waxa u soo galaya waxa ka baxaya ogaada dad badan buu ku leeyahay Ethiopia meel kastu balaaye u fadhidaa meel kastay masiiba u fadhidaa waa masiibada aabaheed qudura waa oday laba qadaad le waa koorde waa caaq
waxaan leeyahay beesha ciisow berri hadduu ugaaskaasi daran lagu dhinto caaq ismaaciil baa ka dambeeya ogaanteed lahada cid kale uma raacan kartiin cid kale ma weydiin kartiin warkaasi haddadaasuu isoo gaadhay anigana qasab bay igu tahay wixii soo gaadhay inaan bannaanka soo dhigoon idin soo gaadhsiiyo marka berri haddaad odhan doontiin ugaaska manu ogayn hadda may tidhi baa taagan warkii waan idin soo gaadhsiiyey allaahumma innii ballaqtu ummadda reer etoobiya iyo ummadda reer jabuutow ka digtoonaada waxa ay wadaan ee taabaarale latoo baroclaamee kumbani kulalihi dayacan iyo caaqu wax kale wey wayn iyo 4 TPLF ee jabuuti haddii TPLF etoobiya laga dhammaaday TPLF jabuuti baa fadhida kuwana sida u dhaqsaha badan waa inaan iyaga sida masaabiirta iska siibna dhagarqabayaasha meesha iskugu yimid ee doonaya inay dhiigun ku maydhaan ee doonaya inay dad dilaan waxooguba waa dil iyo shirqool wax kaleba ay taalkuma leh marka waxaan kuu sheegayaa caaq ismaaciilow dushaaday ka weeran tahay haddii caawo dar ilaahay ugaas mustafa wuxuu noqdo adigaa ka mas-uula ugaas mustafa maxamed ibraahim hadduu caawo dherag u dhinto anta mas-uul adaan qoorta kuu sugnay waayo adigaa falkinaya adigu inankaa yari meeluu kaa gala laayuhu ammaankaa laayuhu kaa shaqaysan kara hawshiisii kaa qabsan laayu marka khaayin baa tahay indhacas khaayin baa tahay aakhiral cimri maraya khaayin baa tahay dalkiisa iyo dadkiisa u daran dariskana dagaal ku wada marka abiye waa kaa iska ilaali halkoor iska qaba caaqa uu inagu maqan yahay nabad buu idiin diida waa idinka arkaya dalkiina siduu hoolcayo TPLF tuu ahaa isagoo TPLF buu ahaa haddana TPLF kalaa jabuuti ka kacday de ma TPLF baan maalin walba ku jirayna waar iska qaqabta waxan 4 gaas dhagoole uu kolla dhaka u didinaya kolla dhakan ugu soo didinaya dadka laga yeeli maayo qaranka jabuuti oo isku duuban way ka hor yimaadeen dariskuna way ku naceen meel walba sanka laga qabsaday waxyeeladaada iyo dhibaatadaada dadka dhaaf gacan ku dhiigle maxkamad iyo baa ku sugaysa maxkamadaha adduunka ku taagan ku talagal maxkamadaha adduunku inay ku sugayaan haddaad moodayso in laga dhamaanayo lagama dhamaanayo shabaglaha adaa ku dambayn adiga iyo TPLF waad ku dambayn doontiin haddii Allah weyn yiraaho oo amaanada lahayo lagu dayn maayo marka digniintaasaan soo dirayaa ka kaca fadhiga dhexda guntada dhagar buu soo wadaa ugaas mustafa ku socdaa maanta xaajadu waa ugaas mustafa maxamed ibraahim ayay diiradu saarantu doonaya caaq ismaaciil doorashada horteed inuu hawada ka qariyo laakiin Allah ma qaalde inuu isagu horeynaya garanaya ilaahay baa garan marka anagu cirka ma gaadhnay dhulkan ka cuskanay aqrud baa ku niri yahu baan kula yaasirallah ku neere dhiig inta aad gashay iyo inta aad dalkiiyo dadka ka gashay dariska xitaa aad walaaqayso lagugu dhaafi maayo waxaan salaamayaa ummadda reer jabuuti dal iyo dibad ummadda dir dhabana waxaan leeyahay digtoonaada berrina lama odhan kartiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinna waxaad tihiin ammaanada ilaahay dal iyo dibad reer jabuuti waan idin soo wada salaamayaa dalkeennu waxaas shaqo kuma leh gacan ku dhiiglaha baa shaqo ku leh isagaa wax walba mu'aamaraad samaynaya marka waan digtoonaanaynaa ilaahayna wuu inala jiraa xaqa ayuu ilaahay la jiraa baadilka lama jiro marka innagoo isku duuban oo midaysan baan ka hortagaynaaye salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu